السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام أصحابتي دقاليقة السود وهذا ميل بجوكتين بو وولاش نسام عمتيو إذن لا مركلي مقال عصب كسود وهذا جينا لكينا أصحابتي عصب وسود وينايا سبسكرايب كعصب وسود وينايا أصحابتي إيه صارتي أصحابتي هوري إلى جوكتنا وحالي وما تسنتين كل إيكو جل مرة كما داردونا مهنقينا فضلا جينا لكيقا داكو عصبتي سبسكرايب يسر ولا لكيقا قاريقا ولا شي قاريقا داهورنا لجوكتنا كومنت لايك شير انت بنوع عاوي فيوكو naga hooseeya ayaamahan fiyuga kor noogu qaada 5 kuna afka u saaranahay sifa aan ku gaarno noo share gareey si walaalo qurux badan ay noogu soo biiraan oo qalbi wanaagsan ma sha Allah tabaaraka Allah mahad koobaad Ilaahay ba iskale alxamdu shukri tan labaadna asxaabteyda qaaliga ah iskale soo dhawaada meel walba joogtiinbo waa in salaamaya asxaabteyda qaaliga markaan ka gudbo salaantaas oo aan ka gudbo salaantaas hawada inii soo marinayo channelka iga daawanayso waa Siham Cabdi Janaal iyo anigu Aleela Cabdi kusoo dhawaada channelkayga kor igu qaada ii share gareey walaalaha qaaliga sida meel fafa ku gaarno walaalaha qaaliga waxaan ka codsanayaa qof walba oo videoga soo gaar waxaan ka codsanayaa inuu ii share gareeyo like share subscribe intaba inuu ii saaraan ka codsanayaa waa in kaga mahad celinayaa siboodkiina wax kasta oo igu sibood gareysay waa kaaga mahad celinayaa aad oo mahadsantiin asxaabteyda qaaliga ah asxaabta cusubna waxa leeyahay mar labaad mar saddexaad soo dhawaada waxaan rabaa inaan ka bal hal iyo laba ka iraahdo ama aan ka hadlo videoga kan qurux ku dhiigle oo maxaan ku dhahay dadka tahriibayaasha amar ka hadlaayay waxa la dhahay su'aalay nina si ku yiriyaal dhahay nina si ku qaadiyaal dhahay sida bilaad hadalka waa margigana sidiisa bilaado margigu waa lastiig oo kaleeto lastiig hada dhinaci loo jiido ayuu u jiidmaa hadalkana sidaas oo kala ah lagu soo masleeyaa oo waxa la dhahay hadal waa margiya la dhahay margigana hada dhinaci loo jiido ayuu u jiidmaa qurux ku dhiigla hadalka sibuu u dhahay dadkii reer magaciisina intay soo googooyeen hadalkii oo in yar kala soo baxeen iyo milyuumaanka ku soo qabteen oo waxay dhaheen qurux ku dhiiga milyuumaanka ku dhaga hadlaaya ama milyuumaanka ka hadlaaya waxaasan wax jira ma ahan dadka in la isku diro xaraam waaye in maxaan ku dhahay dab laga dhexshadan wax fiican ma ahan horaan in kugu sheego waxaan information social media la yiraahdaa qod yar oo aan saas u sii badnayna ka soo galay qodka ka soo galay ha ku xalaaltinoobe wax xalaal soo gudbiso oo wax run soo gudbiso wax xaraan ah adoo gudbinayo oo wax ka soo galayaan waxaas ay fidmo kula gelin qofka bini aadanka siisan ku wax soo tabinayo waxa laga yaabaa oo si fiican u soo wariyay oo si fiican u soo dhuuxay oo ka soo fikiray ama uu soo fiiriyay al raba inuu soo gudbiyo marka wariye tahay ama youtuber aad tahay lama rabo dadka inay isku dirto maxaan ku dhahay taana u kala dab qaado oo wax aan fiicnayn loo qof oo walaala isku dirto oo kala dab qaado war iyo hadal yana in ku daalina bal isla daawana qurux ku dhiigle iyo wixii uu ku hadlay iyo wuxuu ku sheekeeyay hadaladiisa qayb ka mid ah geliyay safarka halista badan safarka naf badan ay ku go'day Soomaalida markaan nahnay anaga Soomaali markaan nahnay waxaan fiirinaynaa halka qof oo Mareykan galay halka qof oo Snapchat iska soo duubay halka qof oo kala kacday halka qof oo Ilaahay badbaadiyay bal hal iyo labo kilibka ugu horeeyay la daawo migrants as old as 70 and as young as infants شخصيا وشخص تهريبة وحنا كسعدا إن كولومبيا إيه بانما كيمها ودحية أو جنجل كيوينا وعركتها ونفتورة صعد كيا بواي إنرجي بدن مهاي محا أمالين يساقف كي لاتين أمريكا كنولا أما لاتين أمريكا أقونت الله وكل شيء هدو بسان ونفتورة ونباتنا مراي جوغانا فهن سنة حمالين سنروح صومالي أو كربون هيدريت كسو كوريو كالشيم تقار أي بكم مقنتاي يا لفيرو علابي قروح ku dhiglo macdan ah wata haduu meesha mar maxaa u maleynaysaa mar waxaaba si dheerba kaymaha noocan oo kale masas halis ah waxa kale si dheer mid kamid ah xayawaanada ugu halista badan waa nooc kamid ah shabeelada duurjoogta ah sidoo kale waxaa jira shakhsiyaad soo tahriibay iyaga iyo familygooda dhan nin iyo xaaskiisa iyo cunugtiisa isla soo tahriibtay bal u fiirso wuxuu ka sheekeynay in dhacdo la kulmo They killed my pregnant wife and a friend. They wanted to kill all of us. Una persona, un conocido, un amigo que estaba en ese momento en
They have 3 more days ahead of them to get to Panama. They have to cross streams and rivers, and along the way they see corpses of migrants. wuxuu ku leeyahay qolooyinka gaangistarada ah ama qolooyinka duurka ku jira oo aanan wax naxariis lahayn wuxuu ku leeyahay wayna qabteen waxay dileen xaaskeyga uur leh waxay dileen saaxiibkeyga annagoo dhan inay dilaan ayay rabeen oo dhawa ka soo badbaad feeri naftiisu la carray xaaskiisa uur leh hortiisa lagu dilay saaxiibkiisa la dilay asan naftiisa la soo fakaday ka waran haya bal adiga waxaa fiirinaysaa labada qof iyo saddexda qof galay war gabadha meeshaas gashay yaa laga yaabaa gaangistarada inay kufsadeen waa lay kufsadeen may ku leedahay yaa waa lay dhacay may ku leedahay waa lay dili may ku leedahay wiilka meeshaa galay waxaa laga yaabaa in jirdil xad dhaaf ah lagu sameeyey jugta qaar lagu dhuftay xataa uusan ka kaci karin asxaabtayda qaaliga waa soo dhageysateen qurux ku dhiigle waxaan qurux ku dhiigle hadalkiisa 3 daqiiqo oo dhan uga soo qaatay waa in hadalka meesha uu ka bilowday iyo meesha uu ku socdo la fahmo waaye because qofka bini aadanka hadalkiisa hadaa dhex kala qabsato meel u socdo iyo meel ka socdo ma fahmaysid laakiin hadaa soo bilaawato oo ilaa ay cabaar aad dhageysato waxaad ogaanaysaa qofka hadalkiisa meesha uu socdo iyo meesha ka bilaabay ayaad ogaanaysaa qurux ku dhiigle wuxuu ka hadlay halista ay wadada leedahay iyo dhibta laga maro iyo inaan qof tagay oo ilaahay inta u fududeeyay tagay aan lagu daysanin oo la dhihin wadada ay fududahay hebelba waa maray ee anagana amarna aan la dhihin ayuu ka hadlay shaqsi ma oo soo dhaleecaynin shaqsina magaciisa ma oo soo qaadan shaqsina wax kama uu sheegin laakiin si guud uu u hadlay walow uu dad Soomaali xataa soo qaadan oo dad cadaan ah soo qaadanayay oo meesha uu leeyahay dhib ku gaaray uu leeyahay sawir rag cadaana iyo family cadaan uu soo qaadanayay si kastaba ha ahaatee qofka bini aadanka qurux ku dhiigle aniga waa shaqsiga aan 100% social media ka taageero waaye shaqsiga 100% aniga social media ka taageero waaye hataana been sheegayn oo maaragtay aan maanta been aan ku dareen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa idaalacanayo oo og aniga qurux ku dhiigle waa taageeraa markaan taageerayo ma ahan qof aan qalad ku taageerayo ma ahan qof aan qabiil ku taageerayo ma ahan qof aan aqoon ku taageerayo aniga qurux ku dhiigle aqoon social media dhaafisan uma lihi maxaan ku dhahay ta qabiilna ma wadaagno wax kale qaraabanimana ma wadaagno ma fahanteen laakiin waxaan ku taageeraa codkarkiisa hadalkiisa wanaagsan ma sha Allah tabarakallah waa wiil yar oo aad iyo aad u qalbi fiican waaye uu hadal wanaagsan yahay hadalkiisa isma dhaawaco hadalkiisa isma jabiyo waa shaqsiga mararka qaarkood fiidiyalkiisa aan daawanayo anuu xanaaqsan iga qosliyo waay wallahi billahi taan qofka anuu xanaaqsan mararka qaarkood aan fiidiyalkiisa daawanayo iga qosliyo waay oo eray aan ku qoslo aan ka helo waay fiidiyalkiisa ma fahanteen waa qof qalbi fiican waa qof 24 saac iska faraxsan waa qof maxaan ku dhahay teen aad u wanaagsan waa qof markii social media wax ka dhacan dadka u gar qaado oo qofna la jirsan qofna aan u eexanin ma fahanteen waa qof meesh uu tagabo si dhaqso ah wada shaqayn uga yeesho oo asxaab uga sameeysto waay qofka marka waxa ku muujinaya inuu qof wanaagsan yahay sida dhaqsaha la uu asxaabta u sameysanayo sida dhaqsaha la uu dadka u helayo ba ku muujinaysa shakhsi fiican inuu yahay meeqa gabdhood la soo shaqeeyay meeqa wiil la soo shaqeeyay qurux ku dhiigle aniga shakhsi aan taageero waaye marna cilad iyo xumaan waa bini aadan uu qaldami karaa laakiin ilaa hadda qaladkiisa ma aragno ma aan arkinbo wax qalad uu leeyahay ma aan arkin qaladna kuma aan arkin marka dadka ina isku dirtiin social media waa dabeecadiina waa waxaad leedihiin oo caadi inay ah waa dadka isku dirtiin ina dadka hadalkiisa intaad dhageysatiin aad in yar ka soo jirtiin aad social media ku siyaacaysan aad dhahdeen qurux ku dhiigle wuxuu dhahay hadda qurux ku dhiigle iyo milyuumaanka xaamada xal isugu gelin waaya qurux ku dhiigle milyuumaanka kama hadlin milyuumaanka wax kama sheegin gabar Soomaali wax kama sheegin laakiin wuxuu dhahay qatarta wadadaas ay leedahay ka hadlay in raggan lagu dhibaateyn karo dumarkan lagu dhibaateyn karo waana run oo qofka markuu jab soo maro badanaa jabkiisa kama sheekeeyo jabkiisa banaanka ma soo dhigo waayo qofka bini aadanka jabkiisa inuu banaanka soo dhigo wuxuu ka jecel yahay inuu qarsado uu ka jecel yahay taas been ma waa run wax dhaca waay ma fahanteen marka aniga waxaan idin dhihi lahaa Soomaali maxamedey risqa raadinaysan si xalaal ku raadiya war inta ka badan war ma sii wadi kara channelka noo share gareeyo subscribe noo saara si aan asxaab badan u helno salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bye bye